fadhigii maanta oo ahaa kii 102 ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland uu shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagaga dooday qodobo muhiim ah oo la xiriira horumarinta arrimaha qaranka Soomaaliland. ugu horeyn wuxuu goluhu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ka warbixiyay xaaladda guud ee la xidhiidha amniga dalka isagoo wasiirku xusay inay ku amaanan yihiin ciidamada kala duwan ee dalka oo mar walba garab ka hela shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa kaloo goluhu warbixin ka dhageystay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ka hadlay halka uu marayo qorshaha saddexaad ee horumarinta qaranka ee NDP3 oo uu soo gabagabeeyay waxna ka tiri doono horumarinta dalka. sidoo kale goluhu wuxuu warbixin ka dhageystay wasiirka howlaha guud guryeynta iyo dhulka Cabdilaahi Abubakar Cismaan oo ka warbixiyay diiwaangelinta hantida maguurtada ee dawladdu halka ay marayso iyadoo ay in muddo iska kaashanayeen wasaaradda horumarinta maaliyadda. wuxuuna goluhu isku raacay dhamaystirka habraaca sumadda hantida qaranka ee maguurtada. dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Mudane Saleebaan Warsame Guuleed oo kaashanaya garyaqaanka guud ee qaranka Mudane Cabdisamad Cumar Maal ayaa golaha u sharaxay wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay xeerka adeega kaalmada sharciga iyadoo uu goluhu ballan qaaday inuu dood ka yeesho shirarka dambe. ugu dambeyn wuxuu golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xusay in xukuumadda ay dhamaystirtay wixii waajibaad ee kaga aadanaa dhinaca doorashooyinka sida ammaanka iyo dhaqaalaha iyadoo xukuumaddu raacisay qorshaha waqtiga ay guddiga doorashooyinku soo cayimeen ee ay ku qaban karaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka. waxay xukuumadda Soomaaliland ku boorinaysaa dhammaan shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland inay si nabad ah doorashooyinka u galaan. Ridwaan Saleebaan Carab, Telefishinka Caalamiga Sahan, Hargeysa.